Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kusoo dhowow FN Academy waa anigii ahaa walaalkiini Taamir Maxamed sida waad ognahay waxaan kusoo guda jirnay koorskii ahaa barashada softwareka Adobe Photoshop waxaan hore usoo qaadanay 7 cashir oo ka mid ah koorskaas kana waa cashirkii 8aad ee koorska barashada softwareka Adobe Photoshop kusoo dhowow cashirkeeni maanta cashirkeeni maanta waxaan ku baranaynaa marka noocyada u kala baxdo kalarka sida arkaysa horteena waxaa ka muuqdo noocyo kala duwan oo kalarka ah waxaan iska masaxayaa dhammaan waxyaalahan hortaada ka muuqdo maanta waxaan ku barayaa marka noocyada kalarka markaan joogno Photoshop kalarka waxaa loo kala qaadaa laba nooc caadi ah oo marka lagu magacaabo color fill oo ah marka kalarka liishaha ah ama inaad sameyso marka waxa lagu magacaabo gradient color si aan kugu kala bixiyo labada kalar waxaan isku dayayaa marka koowaad inaan soo sameysto hal shape ah markii aan soo sameysto shape-ka hadeertan sida arkaysa shape-kan waa marka shape iska caadi ah oo marka fill color ah ama color liisha ah kalarkan aad arkaysa ee liishaha si aad u bedesho waxaad taabanaysaa halkan shape-ka ah markii aan taabto rectangle kadib kalarka waxaan ka maamuli karaa laba meel oo ah meeshan ama inaan markaa ka maamulo halkan aad arkaysid kalarkan aad arkaysid marka waa kalar fill ah ama kalar liisha ah si aan kalarkan wax ugu bedelo kaliya waxaan taabanayaa halkan kadib waxaan soo dooran doonaa kalar walba marka aniga aan rabo marka waxaa jiro wax lagu magacaabo gradients haddii aan aado halkan sida arkaysid wuxuu sameynayaa kalar marka laba qaab ah ama kalar laba dhinac ah dhinacan hoose oo black ah iyo qaybtan oo marka kore oo white ah si aad u bedesho kalaradan sida arkaysa halkan wuxuu kugu sameynayaa xariiqjin dheer oo ka kooban laba kalar qaybtan waxaad ka maamuli doontaa kalarkan kore qaybtan kale waxaad ka maamuli doontaa kalarkan hoose aan aad halkan black ah ama meeshan yar oo marka kalarka black laga maamulo kadib aan dhaho marka click markii aan halkan click siiyo kadib wuxuu ii soo furayaa sida arkaysa marka meesha kalarka laga doorto aan doorto marka hadda kalar sida arkaysa marka isla markii halkan wuxuu isku bedelayaa kalarkii aan halkan ka doortay oo kalar walba aan aado ayuu halkan marka u bedelayaa sidoo kale marka qaybtan korena waxaan ka dhigi karaa kalarkii aan marka aniga u baahanahay waxaan aadayaa asna halkan kadib waxaan dhahayaa click markaan click dhaho kadib asna marka waxaan dooran karaa kalar alo marka kalarkii aan aniga marka ka helo aan u baahanahay aan iskaga dhaaf hadeertan kalarkan white-ka ah kadib aan dhaho open sidoo kale waxaa jiro meeshaan aad arkaysid marka ay qoran tahay linear haddii aan furo wuxuu ii bedelayaa qaabka uu samaysan yahay marka haddii aan taabto radial sida arkaysa wixii dhan wuxuu kusoo koobayaa qaybtan dhexe sidoo kale waxaad dooran kartaa wax lagu magacaabo angle oo ah in hal dhinac keliya aad ka hesho kalarkii marka hadba qaabkii aad marka adiga ka hesho demon aad dooran kartaa hadeertan demonka aan ku dhaafo si aad u abuurto markaa nashqado qurux badan halkan ayaad markaa furi doontaa oo waxaad dooran doontaa noocii marka adiga ku anfaco haddii aad u baahan tahay tusaale oo kale inaad weyneyso kalarkan cagaarka ah oo meeshan aad ka dhigto kalar cadaan ah kaliya waas dhinac marsiinaysaa oo waxaad taabanaysaa click kadib waxaad ka dhigaysaa kalarka cadaanka ah haddana waxaad imaanaysaa dhankan kale oo waxaad leedahay click kadib waxaad dooran doontaa kalarkii cagaarka ahaa oo hadeertan sida arkaysid marka cadaan yar oo qurux badan ayuu dhexda kuugu sameynayaa hadba waxaad dooran doontaa marka nashqadii aad adiga u baahan tahay sidoo kale waad badin kartaa cadaankan oo waxaad taabanaysaa kaliya halkan kadib waxaad soo bixinaysaa dhinacan oo sida arkaysid wuxuu ka dhigayaa mid full zaid ah sidaas aad maamuli doontaa marka waxaan lagu magacaabo gradient cashirkeeni maantana intaas ayaa kugu sharaxaya oo waxaan rabay inaan ku baro waxaan lagu magacaabo gradient iyo sida loogu maamulo isku day aadna marka inaad ku sameyso dhowr kalar oo aad markaa practiceyso cashirkeeni maantana halkan ayuu noogu eg yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu